waxaan tacsiin dirayaa ciidankii qaranka booliiska lagu laayay Ceelaf Weyn oo aan la garanay sababta loo laayay waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday Ceelaf Weyn ninkii ciidanka ahaa lagu dilay waana tacsiideynaya madaxweynuhu wuxuu askariga lagu dilay Ceelaf Weyn madaxweynuhu ma xusin in hooyaha waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay wax la aqbali karo maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadin ah oo waliba hooyaha oo waliba dumar in xabad lagu dilo laga soo qaado in wax dhacay aan jirin ciidanka waa la ixtiraamaa waa xaaraan in wax loo geysto ciidanka ammaanka sidoo kale waa xaaraan in muwaadin aan hubaysnayn oo waxba galabsan xabad lagu dilo baladna laga soo qaado in waxba meesha ka dhacay waxa la yaab leh in cid ama reer uu ciidanka qaranka si dhab yar isaga laayo oo dadana ay noqdaan reerahayna laba jirna ay kala baqdaan oo ninku hadduu qoran yahayna aan la taaban karin reerkooda laga baqanayo waxaa kaloo hadalka madaxweynaha ka mid ahaa inay jiraan beelo ka baqay Ceelaf Weyn nabad baynu ka rabnaa odayaashii qaranka oo dhan baa u baxay arrintaas arrin nabad dhow adeegaysana waxaad moodaa in kabriid ku qabanayso colaadii halka ka jirtay iyo nabadeyntii halka laga siiyay waxa uu agtay midiyay madaxweynaha isugu dhiibay dadka dulqaadka iyo doqonnimadu waa walaalo laba kala saari karo madaxweynaha hadalkiisa ugu dambeeyay waxa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaaliyiin waxay la tahay ereygaas waadi kastoo reersamaan la dhigiisa ugu dhig waxaan halkan ka sheegi doonaa tixyar oo gabay aan ka soo qaatay gabaygii hadraaway suran loo oran jiray tixdaa iyo khudbadii madaxweyne way suuro ka ekaadeen waxa ka mid ah marka uu la hadlayay Filibiin in xukumi jiray oo Marcus loo oran jiray iyo gabadh madaxweynenimada ku haysatay samarkii iyo dulqaadkii iyo naxariista badan bay dadku igu ogaadeen nafta sugaysaan ma awoodahayay yamyamiye qadaadweyn hatta aanaleydii boo ugu tukubaya markaan dhiiran waayaa laysii qodqodaya doofaarka ficiliina loogu daayay kol hadii Dubai iyo waran duunkayga la dhacay yaa dabarka igu xidhay horta maan dagaalamo anigu ma istaafay madaxweynaha dulqaadkii baa iga dhamaaday talo maxaa ku xiga gacantii gacan ka weyn loo geysay ila wala kala kala reerkayga waxay leeyihiin caqli saareen waxaan qabaa in xalka sanaag aanu maanta ahayn xal military waxaan qabaa in xalka sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in channel loo diro waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta ay xal siyaasi ah iyo erga nabadeed wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay xalka sanaag waxaan u arkaa in furihiisu jeebka madaxweynaha ku jiro